السلام عليكم أصحاب دمانتم سلامي صدح قلد أو وين هو سميسو مركا aad Labisanayso qaybtii labaad ayaynu maanta muuqaalkan dhixiisa ku soo qaadan doonaa oo aan ku faahfaahin doonaa. Let's go. soo dhawaada mar labaad intayna muuqaalkan bilaawan aan iska baro marka hore. magacaygu waa Fataax Mar Cali waxaana si kalgacal u weli kartaa Cabdi Fataax Mootino. Kusoo dhawaada channelkayga Mootino Lifestyle. channelki uu horeeyay ee Soomali ah ee aad ka helayso boqolkiiba boqol muuqaalo ku saabsan styleka, fashionka, groomka, dressinka, waxyaabahaas. muuqaalkeena maanta waxaan ku soo qaadan doonaa 3 caado oo khalad ah oo weyn oo la sameeyo marka la labisanayo. aynu muuqaalkeena hore u soo socono sidii ballankeenu ahayd si aad ogaato qaladkaasi waxay yihiin. waxaan rajaynayaa haddii muuqaalkan uu ku anfaco inaad iska day doonto qaladkaas. qaladka koowaad, gacmahayga bal fiiri maxaa ka khaldan. haddana mar labaad fiiri gacmahayga maxaa ka khaldan. bal aad ugu fiirso saacadda iyo gacanta. ku xidhashada gacanta midig oo loogu talagalay bracelets inaad ku xidhato oo aad saacadda ku xidhato, iyo sidoo kale ku xidhashada gacanta bidix bracelets iyadoo oo loogu talagalay inaad ku xidhato saacadda, iyo isku geynta labada gacmood saacad iyo bracelets. waa qaladka ugu weyn ee aynu dhammaanteen samayno, dhalinyar, dadkeena waaweyn, gabadh iyo wiilba. in aad ku xidhato gacanta midig saacad oo ah qaladka ugu weyn ee la sameeyo marka la labisanayo. waa qalad aan ku arkay dhalinyarta inteeda badan, dadkeena waaweyn iyo dhammaan bulshada yar iyo weynba. gacanta midig sharci ahaan waxaa loogu talagalay in ay banaanaato ama haddii aad heli karto aad ku xidhato bracelets. sidoo kale gacanta bidix waxaa loogu talagalay in aad ku xidhato saacad noocay doonta ahaato. labiska kolba ka aad jeceshahayna u xidhato, laakiin waxaa masti ah in gacantaada bidix ay saacaddu mar kasta ku xidhnaato oo ayna midigtaada ku xidhnaan. waa sharci caalami ah oo dhammaan la isku wada waafaqsan yahay, adiguna waa soo baari kartaa. xitaa adiga haddii aad internetka aad ku qorto saacadda gacanteeba loogu talagalay inaad ku xidhato, waa kuu soo saarayaa gacanta lagu xidho. sidoo kale Faldan iska ilaali inaad iskugu geyso hal gacan saacadii iyo bracelets ama gacantii, ama aad xidhato hal bracelets wax ka badan oo gacan keliya taa. stylekaaga ayaa ay hoos u dhigaysaa qaladkaas. Faldan qaladkan waa qalad aad u weyn oo ay tahay in muuqaalkan kadib aynu iska dayno ama aynu iska saxno. gacanta bidix waxaa iska leh oo loogu talagalay keliya taa saacad, halka gacanta midigna loogu talagalay in aad ku xidhato bracelets noocay doonta ahaatee. haddii aanad heli karayna ay gacanta midig ku marnaato oo aan waxba ku xidhan. hadda kadib waxaan rajaynaya inaad taqaano in gacanta midig lagu xidho braceletska, gacanta bidixna lagu xidho saacadda. qaladkeena labaad, mara cad ayaad xidhanayso, shaar ha ahaato ama surwaal ha ahaato ama khamiis ha ahaato, oo aad xidhato mara ka hooseysa oo midab leh. tanna waa qaladka ugu weyn ee aynu dhammaanteen samayno haddii aynu nahay ragga. sidoo kale waxaa qalad weyn oo aan laga aamusi karin ah in aad aragto qof xidhan mara cad, shaar cad ha ahaato ama khamiis cad ha ahaado ama labis kale oo ay mara cad ku jirto oo ka hoos xidhan maradii caddayd mara kale oo kalar leh. sidoo kale waa mid ka mid ah qaladaadka ugu waaweyn ee ay sameeyaan dhalinyarteena, dadkeena waaweyn iyo kuweena yaryarba, gabadh ha ahaato ama wiil ha ahaato. waxa aad arkaysaa qof shaarac maraya ama xaflad jooga ama goob waxbarasho jooga ama meel lagu caweeyo oo xidhan mara cad kana hoos xidhan mara kale oo kalar ka duwan leh. marka ishaadu ay ku dhacdo aad toos uga dhex arkayso maradii kale oo qofkaasi ka hoos xidhnaa marada cad. waa qalad aan laga aamusi karin oo aniga laftayda aan soo sameeyey, jeclaystayna in aan idinla wadaago. Faldan marka aad labisanayso, gabadh ahaw ama wiil ahaw, qof weyn ahaw ama qof yar ahaw, mar kasta maskaxda ku hay in mara cad aad ka hoos xidhato mara kale oo cad. labada maro ee cadcad ee aad iska hoos xidhanayso waa is sheekhanayaan, kadib waxay soo baxayaan isku hal maro oo cad. haddii shadkaas uu yahay shaar cad, Faldan ka hoos xidho shirt garmaati nooca loo yaqaano ama shirt nooca loo yaqaano. haddii shadkaasi gacmo gaab yahayna ka hoos xidho garanfiino kale oo cad. haddii aad khamiis cad xidhantayna Faldan u xidho surwaal cad iyo garan cad. Faldan qaladkan weyn aynu iska saxno.
si aynu ula jaaqaadno bulshooyinka caalamka ku nool aynu noqono dad isteelkoodu meel kasta uu ka saxsan yahay. qaladkeena saddexaad, xidhashada saraawiisha aadka uga dhaadheer cabirka lugahaaga ama dhererkaaga, iyo sidoo kale xidhashada dharka aadka uga dhaadheer cabirka jirkaaga. sidoo kale waa qalad aad u weyn oo la sameeyo marka la labisanayo, inkasta oo ay tahay isteel gaar ah oo soo jireen ahaa oo ay dadka qaar jecel yihiin inay xidhaan saraawiisha cabirka dhererkooda ka dheer marka loo eego dadkii hore oo kale, laakiin sharciyada qaar waxa ay mamnuucayaan inaad xidhato surwaal ka dheer cabirka jidhkaaga. waxaan tusaale fiican inoogu filan diinteena macaan islaamka. waxa aan kugula talinayaa surwaalku dheesaynkiisu noocuu doono ha ahaado, fadlan yaanu hoos u dhaafin qolofka lugtaada. haddii aad haysato saraawiisha qalabsan ee jiiniska ah, fadlan hoosta ka soo laab soona gaadhsii qolofka lugtaada. haddii aad xidhato saraawiisha trouseriska ama suudkana, fadlan waxaa khasab ah in ayna ka dheeraan cabirka dhererka jidhkaaga iyo lugahaaga. fadlan markasta xidho surwaal leg cabirka jidhkaaga iyo dhererkaaga. ugu dambeyn waxaa rajaynayaa in muuqaalkeeda kooban oo ku anfacay. hadda kadibna aad taqaano sidii aad iskaga dayn lahayd qaladaadka markaad labisanayso. haddii muuqaalkeeda kooban oo ku anfacay, fadlan like noo saar adigoo mahadsan oo naga codsi. sidoo kale ha ilaawin inaad commentiga noogu reebto fikirkaaga, waa noo muhiim. ha ilaawin channelkan mootina lifestyle inaad subscribe saarto, annaka dhiirigeli bay noo tahay. waa channelkii ugu horeeyay ee Soomaaliya ee 100% ka hadla steelka, fashionka, groomka, dressinka. ha ilaawin inaad subscribe saarto channelkii mootina lifestyle. waan salaamay asxaabta, mac salaama, bye bye, goodbye.